asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta ku xiran janalka marka la soo dhawaada aad iyo aad u mahadsantihiin. maanta waa arbaco 23 bisha afraad ee abriil sanadka 2025. muuqaalkan waxaan rabaa inaan idinkula wadaago fadeexad mar kale abka signal ka soo wajahday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka. arrintaasi sidee ku timid yuusa xogtaasi la wadaagay ayaan sidoo kale idinla wadaagayaa. sidoo kalena ninka maalqabeenka adduunka Elon Musk ayaa 3 bilood ee ugu horeysay shirkadiisa khasaaraha ku yimid maalnimadii shalay ahayd la shaaciyay. haddaba xalay dadka maalgashiga ku sameeya shirkadiisa qadka taleefanka ayuu kula hadlay, muxuu u sheegay, muxuuse ka bedelayaa howl maalmeedkiisiina sidoo kale waan idinla wadaagayaa. arrintan la yaab kale axadii ayay dhacday. wasiirka amniga gudaha ee Mareykanka Christine Ohm oo maqaaxi familkeeda kala casheynaysa munaasabada ciidii Easterka ama dabaaldegii Easterka ayaa boorsadeedii oo waxyaabo muhiim ay ugu jiraan laga xaday xilli miiska cashada ay fadhisay. arrintaasina sidee ku dhacday sidoo kale waan idinla wadaagaya, balse marka hore soo bishii hore in fadeexad ay soo wajahday wasiirka gaashaandhigga ee dowladda Mareykanka oo xitaa markaasi mas'uuliyiin kala duwan oo dowladda ah ay kula jireen uu kamid yahay la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka, madaxweyne ku-xigeenka JD Vance, wasiirka arrimaha dibadda. laakiin hadda waxaa soo baxday mar kale fadeexad kale oo islaas abkii signal oo la xiriirta duqeyn dowladda Mareykanku ay xuutiyiinta Yemen ay u geysanaysay. waxaa la leeyahay wasiirka gaashaandhigga ayaa waxaa xog muhiim ah oo weerar la rabay in lagu qaado xuutiyiinta oo cirka ah la wadaagay General Michael Eric Kurilla oo dhinacaasi dowladda Mareykanka ciidamadaasi u qaabilsan, waxaana uu kula wadaagay meel muhiim ah oo ammaan ah. sidaas darteed waxaa la leeyahay wasiirka gaashaandhigga taleefankiisa shaqsiga ah ayuu isticmaalay, waxaana xogtaasi helay xaaskiisa, walaalkiis iyo weliba qareenkiisa ama looyarkiisa qaaska ah, dadkaasi oo aan loo baahnayn inay xogtaasi ogaadaan. haddaba arrintaasi markii ay soo baxday kadib wasiirka gaashaandhiggu waxauu shaqada ka ceeriyey 3 ka mida la taliyayaashiisii sarsare toddobaadkii lasoo dhaafay. waxa uu yidhi iyaga ayaa warbixinadan dusinayay oo legal sameynayay, sidaas darteed dad uu isagu magacaabay ayaa shaqada uu ka ceeriyo. waxaa la arkay iyadoo ciidamo ay ka soo saarayaan wasaaradda gaashaandhigga ee Pentagon. sidaas darteed ayaa waxaa hadda mar kale soo baxday fadeexadan xilli tii hore bishii hore ay jirtay oo wasiirka gaashaandhigga la leeyahay laguma aamini karo xilkan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka. laakiin Trump arrintaasi been ayuu ku tilmaamay, waa uuna difaacay wasiirkiisa gaashaandhigga. sidoo kalena waxaa jirta Pete Hegseth in isaguna uu yidhi arrintaasi waxba kama jiraan, dad ayaa warbixinadaasi beenta dusiyey, arrintaasina ma jirto. marka waa fadeexad mar kale la soo gudboonaatay. sidoo kale mid ka mid ah la taliyaashii uu ceeriyo wasaaradda gaashaandhiggu ka ceeriyay ayaa waxa wareysi siiyey Tucker Carlson oo Fox ka tirsanaan jiray, laakiin hadda isagu warbaahin madax bannaan iska samaysto YouTube-ka iyo Twitter-ka iyo meelahaas wax soo geliya ama X. waxaana ninkaasi uu u sheegay Tucker Carlson in isdhexyaac badan uu ka dhex jira wasaaradda gaashaandhigga, sidaas darteedna uusan hogaamin karin wasaaradda gaashaandhigga Pete Hegseth oo loo baahan yahay in la bedelo. laakiin Trump uma muuqdo inuu hadda bedelayo. bishii hore waxaan ogeyn in wariye ka tirsan The Atlantic wargeyskaasi lagu soo daray abka signal oo mas'uuliyiin kala duwan dowladda ay ku jireen. waxaa la leeyahay warbixintan hadda xaaskiisa, walaalkii iyo weliba qareenkiisu ay ogaadeen waxa ay ahayd diyaaradahu xilliga ay duulayaan oo duqeyntaasi ay geysanayaan iyo halka ay bartilmaameed ka dhiganayaan ayaa generaalku la wadaagay wasiirka gaashaandhigga. wasiirka gaashaandhigguna waxaa la leeyahay waxaa xogtaasi helay walaalkii, xaaskiisa iyo qareenkiisa oo aan loo baahnayn inay ogaadaan. arrintaasina haddana mar kale waa ay jirta, wayna arki doonaa waxyaabaha kale ee kasoo kordha. shalay shirkadda Tesla ee baabuurta elektroniga ah ee soo saarta uu iska leeyahay maalqabeenka adduunka Elon Musk ayaa waxa ay ku dhawaaqday 3 bilood ee ugu horeysay faa'iidada ama khasaaraha soo gaaray. waxaana muuqanaysa in marka la barbar dhigo sanadkii hore baabuurta ay iibinayso 9% hoos u dhac ku yimid. waxaana sidoo kale jirta 3 bilood ee ugu horeysay sanadkan oo January, February iyo March lacagta soo gashay in hoos u dhac weyn laga dareemayo. faa'iidada
shirkadda hoos u dhac weyn ayaa laga dareemaya. Hadda sanadkan 3 bilood oo horeysay 409 milyan ayaa soo gashay. Taasi waa 71% faa'iidada shirkadda oo hoos u dhac ku yimid oo 3 bilood ee sanadkii hore marka la barbar dhigo 1.4 bilyan ay ahayd lacagta soo gashay. Marka arrintaasi waxa la leeyahay waa hoos u dhac weyn oo shirkadda ku yimid markii ninkan dowladda uu ku biiro oo la taliye Trump uu noqday. Trumpna uu dhiibay Department of Government Efficiency in lacagaha dowladda macnadarada ay ku bixinayso uu badbaadiyo oo qasna dowladda uu ku soo celiyo. waxa la leeyahay ninkan siyaasad ayuu faraha la galay, markaasi ayuu deeqa faraha la galay. waxaana sidoo kale jirta in arrintan canshuurta ah oo Trump uu ku soo rogay wadamada caalamka in uusan Elon Musk uusan ku taageersan. xitaa mar ayuu soo jeediyay in ganacsi xor ah Yurub iyo Mareykanka uu ka dhaxeeyo. marka arrintaasina waa isku khilaafsan yihiin. laakiin markii arrintan oo hoos u dhaca shirkadda ku yimid ay shalay soo baxday 3 bilood ee ugu horeysay sanadka, xitaa qiimihii shirkadda oo lagu iibsanayay saamigeeda hoos u dhac weyn ayaa laga dareemaya. waa tii dad fara badan baabuurtii ay iska celiyeen, la diiday in la gato Mareykanka maan xitaa Yurub iyo wadamada caalamka. waxaana sidoo kale jirtay in dhibaatooyin loo geysanayay gawaarida Tesla xarumaha lagu iibiyo qaarkood la gubay, taasi oo maamulka Trump uu yiri argagixiso gudaha ayaa u aqoonsan doona dadka falalkaasi geysanaya. wasaaradda cadaaladana ayba dhowr qof soo xirtay oo hadda ay u xiran yihiin gubitaanka shirkadda Tesla gawaarideeda in ay gubeen. marka xalay dadka maalgashiga ku sameeya shirkadda Tesla ayaa Elon Musk uu khadka telefoonka kula hadlay, waxaana uu sheegay in laga bilaabo bisha soo socota in uu yareyn doono hawshii dowladda uu u hayay, uu ku soo koobi doono toddobaadkii 1 maalin ama 2 maalmood. waxaana uu sheegay inuu hadda u soo jeesan doono uu xooga saari doono shaqada shirkadda Tesla. marka sidaasi ayuu dadka maalgashadayaasha uu sheegay. Trump markii uu u magacaabayay Department of Government Efficiency, Elon Musk markii uu magacaabayay waxa ay ahayd in lagu magacaabay Special Government Employee, shaqaale qaas ah oo dowladda federaalka ka tirsan. marka xilkaasi lagu magacaabo waxa la leeyahay 130 maalmood oo kaliya ayaa hayn karta. marka waxay ugu egtahay 10 bisha soo socoto 4 bilood. marka waxa uu yiri shaqadaasi dowladda waan ka dhamaan doonaa oo waan waqti badan ma gelin doono, laakiin laga bilaabo bisha soo socota waxaan waqti badan gelin doonaa shirkadda Tesla iyo sidii kor loogu soo qaadi lahaa. marka arrintaasina waa arrin uu doonayo. shaqadeedii wuxuu yiri Dodge hadda inta badan waan qabtay, marka sidaas darteed dhinacayaan isaga taagaya oo waxaan diiradda saaraya shirkadda Tesla iyo howlaheeda. sidaas ayaa dadka maalgashiga ku sameeya shirkadda uu qalbiga ugu dajiyay xalay, laakiin wayna arki doonaa haddii ay ka soo kabsan karto jabkan weyn ee soo gaaray shirkadaasi Tesla. dhinaca kale waxaa jirta in wasiirka amniga gudaha Kristi Noem in habeennimadii axadda maqaayad ku taala caasimadda DC iyada iyo familkeeda oo ka cashaynayo maadaama Easter holiday-gii ahayd Isniintii, in xilli ay cashada u fadhiyeen kursiga agtiisa intay boorsadeedii dhigatay tuug oo maskaratigii xilligii coronaviruska la qaadan jiray oo surgical mask la yiraahdo kii buluug ahaa uu xiran yahay in boorsadii uu ka hoos qaaday iyada oo aan dareemin. xitaa ciidamada Secret Service ayaa ilaalinayay, iyaguna ma aysan dareemin. boorsadaas marka waxaa ku jira ayaa la leeyahay in baasaboorkeedii ayaa ku jiray, leesinkeedii ayaa ku jiray, sidoo kalena ID-ga wasaaradda amniga gudaha ay ku gasho ayaa sidoo kale ku jira iyo lacag $3,000 oo caruurteeda iyo caruurta ay iyadu tahay ay doonaysay inay hadiyado ugu iibiso. marka ninkan kulay baasaboorka waxyaabaha ma doonaya lacagta $3,000 ee kashka ayaa u daran, uu iska tuuri doonaa. laakiin ilaa hadda lama helin. Isniintii mar ay aqalka cad joogtay oo munaasabadda Easterka ay ka qayb galaysay dabaaldegeeda ayaa wariye waxa uu weydiiyey ma runbaa in casho lagaga qaatay boorsadeedii. ha ayay tiri oo ma aysan beenin, waa ay jirtaa, laakiin waa ay diiday in ay faahfaahin dheeraada ay kasii bixiso. marka gabdhaha marka maqaaxiyaha tagtaan boorsadiina in aad dhigataan amaba garabka aad ku haysataan amaba gacanta amaba labadaada lugood dhexdooda intaad gashato aan lagaa qaadan karin. laakiin haddii aad kursiga dhinaciisa aad iska dhigto si fudud ayaa lugta loogu dhufanayaa, kadibna hore ayaa loo qaadanaya. marka arrintaasina ka digtoonaada dumarka, ayaga ayaa boorsooyin gacmaha iyo garabka ku qaata marka inta badan oo waxyaaba muhiimana ay ugu jiraan sida sharciyadoodii, sida hadda wasiirka amniga gudaha aad ka aragtaanba. marka arrintaasina waa ay jirtaa. ugu dambeyntii dad fara badan waxay soo weydiinayeen arrimihii qaxootiga. waa tii 18 bisha maamulka Trump loo qabtay inay kasoo jawaabaan 90 maalmood oo maamulka Trump uu qabtayna sidoo kale uu qabtay qaxootiyadaas in wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha dibadda ay qorshe la yimaadaanna waa uu dhammaaday. marka ilaa ay hadda wax war ah
oo ka soo baxay maamulka Trump oo ah amarkii garsooraha maxkamadda iyo 90kii maalmoodba ma ay jirto markastaba isha ayaan ku hayaa haddii arrimahaasi qaxootiga ay wax ka soo kordhaan oo maamulka Trump uu ka hadlo waan idin soo gudbin doonaa haddii la yiraahdo laakiin ilaa iyo hadda wax ka cusub ma jiraan haddii ay jiraanna waan idila soo wadaagi lahaa marka aad iyo aad u mahadsantiin waan arkay inaad kommentiyada aad arrimahaasi igu soo weydiinayseen wixii cusub oo dheeri ah oo soo kordho halkan ayaad kala socon doontaan iyo baraha bulshada sida TikTok iyo weliba Facebook iyo weliba YouTube aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin cilmi waaro idin la sida iyo nabadgelyo